haddii aad saxan tahay uma baahnid inaad xanaaqdo, haddiise aad qaldan tahay xaqba uma lihid inaad xanaaqdid. dulqaadka aad qoyskaaga u muujisaa waa jacayl, dulqaadka aad dadka u muujisaana waa xushmad iyo qadarin, dulqaadka aad naftaada u muujisaana waa kalsooni aad ku qabto naftaada. weligaa aad ha uga fikirin wax aad soo dhaaftay, waayo waxay kugu dhalin kartaa xasuus qaraar. weligaa aad ha uga fikirin wax soo socda, waayo waxaad dareemi kartaa cabsi mustaqbalka ah. ka faa'iidayso wakhtiga aad ku sugan tahay adigoo dhoolla caddaynaya, kuna kalsoonow allah jalla jalaaluh. imtixaan kasta oo nolosha ah wuxuu ku tusayaa welwel ama rajo wanaagsan. dhib kasta oo ku soo marta waxay kaa dhigtaa qof jaba ama qof sii jira oo adag. si kastaba qadarta ilaahay waa mid mar walba jirta, qorashaduse waa dhankaaga haddaad noqon lahayd qof guulwada ah ama guuldarraysta ah. qofna ma doonayo in lagu arko xumaan, loogu yeero magac xun. qof kastaa wuxuu jecel yahay wax wanaagsan, laakiin doorasho bilaa ficila marnaba kuma kasban kartid. dooro wanaagga oo samee samaha. biyuhu ma laha midab, ur iyo dhadhantoona, haddana ma jiro noole noolaan kara la'aantood. cilaaqada ama xiriirka keliya aan marnaba xumaanin, fashilmin, khalqalgelin, niyad xunna aysan la soo darsan iyo malooyin ayaa waxay tahay cilaaqada iyo xiriirka qofka kala dhexeeya rabbigiisa. dariiqooyinka ugu daahirsan ee lagu joogtayn karo xiriirkaasi ayaa waxaa ka mid ah salaada. shakhsiyadda xoogga leh micnaheeda maaha inaad ku hadaaqdo hadallo liita ama afxumo ah, ee xoogga waa xigmad ee maaha afxumo. haddii aad shay doonaysid, ka dalbo rabbigaaga. si aad ah u dalbo, dalabkaaga ku celceli oo ha ka daalin. waxaase hubaala inuu alle kaa ajiibayo, waayo alle wuu ku maqlayaa. marka aad barido waa ku arkayaa, marka aad dhaqaaqayso waana og yahay waxaad samaydo, halbowlahaagana waa kaaga dhow yahay. qalbigu waxa uu og yahay waxa uusan ku dhawaaqin carrabka, dhegahana aysan maqlin. adiguna waa inaad ogaataa waxa carrabkaagu ku dhawaaqayo, dhegtaadana ay maqlayso. qofka aan dhadhamin qaraarka bilowga ma dhadhaminayo macaanka dhammaadka. qofka mar walba ka fikira dhammaadyadana bilow ma laha, meelna ma gaaro. waxaa jira dadku u dhakan oo sugayaan ilaa aad ka dhacayso. marka aad dhacdana ay kuu sheegayaan inay filayeen mar hore inaad la kulmaysatan oo kale. bal intay dadka ku mashquuli lahaayeen may ku mashquulaan naftooda. ogowna inaad naftaada ku mashquushid ay kaaga xaqnimo badan tahay inaad ku mashquusho kayrkaaga. wax walba waxa uu la dhashaa subaxda. qadarka, rajada, najaaxa iyo guusha, himmada. qisadii shalay waxay soo xirantaa subaxda, waxaana bilaabanaya qiso cusub. ee niyaddaada wanaaji kana runsheeg, waayo niyaddaada ayaa lagugu irsaaqayaa. dhoolla cadday maanta si ay u ogaadaan dhammaan in aad maanta in badan ka xoog badan tahay shalay. weji macbuusnimadana waxba kuuma soo siyaadinayso aan ahayn in lagaa kala fiigo, sababtoo ah in aad walaalka ama walaasha aad kula kulantid weji bashaasha waa sadaqo. saamixidda iyo cafinta micnaheedu maaha inaad ku celiso isla tijaabadii midkii aad saamaxday. dhacdooyinka shalay waa darsiga maanta, sidaa darteed ceeb maaha in maanta dhagax aad ku kor kufto, balse waxaa ceeba isla dhagaxii shalay aad ku kuftay maantana inaad ku kor kufto. haddii alle ugu talagalo inuu ubax ku dhex ubaxoobo oo ka dhex baxo dhalo cidhiiri ah dhexdeeda, waa uu ubaxoobayaa oo ka baxayaa. sidaasi si la mida waxaa ah dhammaan umuuraheenna. ee arrimahaaga rabbi u daa oo isaga tala saaro oo dheh yaa rabbi. dhammaan dadka samaan kula dhaqan, waayo waxaa jirta daqiiqado la ismacsalaameeyo oo aan la haynin waqti xadidan, oo markaasi waqtiga kuu saamaxaynin in aad cidna u cudur daarato ama aad raalligeliso. dumarka ma sharfo ilaa mid sharaf leh maahane, mana ihaaneeyo oo ma dulaysto ilaa mid liita maahane. waa xadiid saxiixa.
kani wuxuu ka mid yahay xadiidyada rasuulku kaga hadlay sallallahu calayhi wasallam dumarka. rasuulkuna waa khayr badanaha ugu khayrka badan basharka oo dhan. marka ogow, dumarka waa inaad sharaftaan, hadal ahaan, ficil ahaan iyo dhaqan ahaanba. hana liidin hadal ahaan, ficil ahaan iyo dhaqan ahaanba. xumaan faafiyaha ayaa ka daran xumaanfalaha. basharka waxaa ugu daciifsan oo ugu liita qofka ku qanca hadalka dadka daliil la'aan ka hor inta uusan naftiisa u samaynin qanaaco. ahaw adiga sida aad tahay, kana digtoonow inaad har qiimala u noqoto qof uun. farxadda ayaa la weydiiyey goormee timaadaa. waxay tidhi waxaan imaadaa markay nafsaddu garato inuusan ku dhacaynin wixii alle u qoray mooye. farxaddu ma aha inaad haysatid wax walba, ha yeeshee qofku wuxuu farxaan ku noqdaa waxa uu haysto. qadarka oogidda salaadaada iyo xifdinta waqtigeeda ayaa diintaada u istaagaysaa, adduunyadaaduna way hagaagaysaa. ee oog salaadaada oo ku bishaarayso in wax walba ay kuu fududaanayaan. haddii aad doonaysid inaad ogaato xaalka qabrigaaga sida uu noqonayo, waxaad eegtaa xaalka qalbigaaga laabtaada ku jira. haddii qalbigaaga bilan yahay, qabrigaaga waa bilan yahay. haddii qalbigaaga cidhiiri yahay, qabrigaagana waa cidhiiri. haddii qalbigaaga degganaan iyo xasilooni ku jiro, qabrigaagana degganaan iyo xasilooni baa ka jirta. haddii qalbigaagu farxad ku nool yahay, qabrigaagana farxad ayaad ku noolaanaysaa. meel fog waxbaha ka raadin, ee cibrada iyo halbeegga waa qalbigaaga. haddii qalbigaaga hagaagsan yahay, jidhkaaga waa hagaagayaa. haddii uu jidhkaaga hagaagana, qabrigaaga waa uu hagaagayaa. ma helaysid degganaan, xasilooni, amni iyo raaxo ilaa salaadaha shanta ah aad wakhtigooda ku tukatid, waayo waxa ay ka mid tahay tiirarka sacaadada iyo farxadda, albaabka liibaanta iyo najaaxa iyo waddada guusha iyo buundada badbaadada. marka laga doodayo waxyaabaha aan qiimaha lahayn, waxay qaadataa wakhti badan, waayo dadka badankoodu ma yaqaanaan sida looga hadlo mas'alada laga hadlayo in ka badan waxa muhiimka ah. marka laga doodayo waxyaabaha muhiimka ah oo qiimaha leh, inta badan dadka carabkoodu ayay liqaan, waayo waxay u baahan tahay awood cilmi, fariidnimo gaamurtay iyo macluumaad waafi ah. marka wax qiimo leh oo khayra ku hadal ama iska aamus. ha sugin cid waddo kuu furto si aad u marto, adiga furo waddadii aad mari lahayd. haddii aad weydid waddo aad furatid, adiga samayso waddo. balse haddii aad ku jirto qolka oo aad tidhaahdo waddo la maro ma laha, weligaa sidaasi ayaad ku heesi. marka hore ka soo dhex bax qolka oo dibadda imaaw oo eeg inay waddada furan tahay iyo in kale. dhammaanteenna ciid iyo turaab ayaa nagala abuuray, ciid ayaana ku dul soconnaa. ciidda hoosteeda ayaa la marayaa, mana jiro qof kale ka fadli badan alle kacabsiga iyo alle ka dhowrsiga mooye. qof walbana dadaalkiisa ayuu helayaa. adigana haddii aad meel isdhigto, cid kale ha ku eedaynin. qof walba dadaalkiisa ayuu leeyahay, midhihiisana waa guranayaa. allow 5 ayaan ku weydiisanaynaa, waxaana kaa rajaynaynaa in aad karamkaaga nagu siisid. caafimaad qab aan ku xoojinno daacadaada, cibaado noo horseeda dembidhaafkaaga, waasicinta risqiga xalaasha ah, amni aan kaga magangalno mowqifyada cabsida leh, farxad aan fashil iyo muruga ka dambaynin, xumaan kastana allow naga ilaali. awooddaada shakhsiyadeed si kasta ay u xoog badan tahay, waxaa jira goor walba qof marka aad hortiisa ama horteeda soo istaagto aad daciif noqonayso. mana aha cabsi iyo dulinimo toona, ee waa makaanada sare ee qofkaasi qalbigaaga ku leeyahay, lagana yaabee inuu istaahilo. shimbir geed dul fadhidaa marnaba kama cabsato in laanta ay saaran tahay la jabto, sababtoo ah kalsoonideedu ma aha laanta, balse waa baalasheeda. had iyo jeer ku kalsoonow naftaada oo kaasho rabbigaaga. haddii aad ku guulaysatay inaad qof khiyaanto, ha u malayn in qofkaasi doqon yahay. ogow in qofkaasi ku aaminay in ka badan intii aad istaahishay. marnaba ha iska dhega tirin qofku jecel, ku daryeela, kuu baahan, sababtoo ah maalin ayaad intaad bararugto garan doontaa inaad dayaxa weyday kolkii aad xidigaha tirinaysay. noloshu waxay macno badan yeelataa markii aad garawsato xaqiiqda fudud ee ah in fursad isku mid ah aysan 2 jeer ku soo marayn. ka faa'iidayso fursad kasta. haddii qurux iyo magac keenaan xiriir waara,
kuwa caanka ah ee heesa ama filimaanta jila ayaa guurka ugu wanaagsan yeelan lahaa, laakiin waxay haystaan diiwaanka furiinka ugu badan ee dunida. ciyaarta feerka ama boxing game-ka inaad ku guuldarraysatay laguma dhawaaqo, lama iclaamiyo markaad dhulka ku dhacdo. waxaa lagu dhawaaqaa markaad diiddo inaad dhulka ka soo kacdo. noloshu waa sidoo kale, waad ku faysaa wax badan, balse waxaad guuldarraysatay markii aad diiddo inaad dhulka iska qaaddo oo kor u kacdo. boqor kasta xilli buu ahaa ilmo yar oo oohin badan, dhismo kasta oo weyn xilli buu ahaa nashqad warqad yar ku qoran. muhiim maaha halka aad maanta joogto ama aad taagan tahay, laakiin waxaa muhiim ah halka aad berri gaari doonto. intaas ayaan ku soo koobayaa xigmadaheennii maanta. fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalka Ilays, rukumo oo subscribe dheh, kadibna gambaleelka furo si ay kuu soo gaaraan dhammaan waxyaabaha aan soo gelinno halkan. lana wadaag asxaabtaada ugu yaraan hal qof. fii amaanillaah.